waxaa ka horeeya horta in la yiraahdo sidee iyo howlgadii sidii lagu helayo loo faraduubo loo baahan yahay dadkaas markii laga gudbo waa sida aad sheegteen labadaas dowlad kasta oo qaranka dowlad kasta ay jirta waxaa horta ay sugtaa xuduudaheeda ayaa sugta waa mid caalamiya haddiise meeshaas hadda dowlad kasta oo sheeganaysa haddii xuduudaheeda ay sugi karin dowladnima iskuma sheegi kartid dowladnimadu waxay ku jirtaa in marka ugu horeysa xuduudahaada aad sugi kartid kii soo galaya aad ogaan kartid kii ka bixi kara aad ogaan kartid haddaadan xuduudahaada suginayn macnaheedu waxay tahay dowlad ma jirto sidaa darteed ciidamada hooga dalka oo isku dhafan la geeyey xuduudaha waa astaan diritaan dowladnimo sidaa darteed waa taageerayna haddaan nahay maxaa la yidhaahdaa dadka ku nool ama dadka jumhuriyadda arrintaas dowladda ku qaaday aad baan ku taageeraynaa waxaan diyaar u nahay diidino waxaan diyaar u nahay wax kastaba nafsiga meeshaas nafsiga maalka diyaar ayaa u nahay haddii baa la difaacaya qarannimada Soomaaliyeed oo sidaa darteed waxaan leenahay waa arrin nala soo tahay haddii amaanta ku mudaaharaynaa waa idinku taageeraynaa xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliya ma aha keliya midda hadda oo la leeyahay jumhuuriyadda waxaan taageersanahay xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliya in dhulba in la ilaaliyo in ciidamadaas awood la siiyo ciidamada Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryaynaa inay ilaahay guul iyo siiyo guushooda waa jiritaanka qarannimo ee Soomaaliyeed habeen iyo maalin waa ku taageeraynaa waa ku taageersanahay in ay dhulka iyo dhulkaba la dhaho Soomaalidu leedahay la ilaaliyo xuduudana la ilaaliyo gaar ahaan dhinaca Jubbooyinka oo hadda badan ama Kenya kusoo xadgudubto oo dad Soomaaliyeed howluhu ay ku baabiyaan dad Soomaaliyeed nafta qaadka ay baabiyeen la og yahay maanta la geeyey waa arrin xaqa waa arrin qarannimada Soomaaliyeed muujinaysa waa xuquuq ay leedahay dowladda federaalka waa ilaalinta xuquuqaha waxaa iskale dowladda federaalka iskale sidaa darteed waa sida idinka u taageerteen annagana sidaan ku taageerayna waan isleenahay aan balan qaadno ilaahay diligiisi in tooxiid iyo howba ciidamadaas Soomaaliyeed waysan dhafa oo meeshaas la geeyey inaan taageerno inaan hiid iyo howba aan ku kala istaagno inaan ku do'eyno insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha ogaas aweeshe Xuseen Oneero sida ugu dambeyntiina oo shirka noogu xiray wahada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu